insha Allah maanta waxaan ku siin doonaa tilaabada nafsadaada ku dhiirigelin karto inaad buug akhriso uma baahnid inaad ku celcelisid ee kaliya waxa u baahan tahay inaad buugaas si dareen leh aad u akhriso hadii aad u baahan tahay inaad buug akhriso kuma xirnid inaad ingiriiska taqaanid ee kaliya waxay ku xiran tahay inaad adiga rabtid inaad wax akhriso kullaba aad u baahan tahay inaad wax akhriso soo waad akhrinaysaa laakiin uma baahnid maxaad akhrinay maanta buugaas soo qaatay waa fiir like uma baahnid xaga iska dhiga dhan like xaga iska dhiga sababtoo ama barababa ma ka helin waa inaad akhbashaa horta hadii aad u baahan tahay inaad buug akhrido uma baahna inaad si dhaqsi leh u akhriso tusaale waxaa dhahday buugan weyn yahay mugtahay tusaale buugan yaa tusaale ku soo qaataa buugagta badan yihiin Six Habits, Atomic Habits adiga Rich Father buugagta way badan yihiin inta aan akhriyo hadda tusaale buugan wuxuu ka kooban yahay 300 page oo aad u badan yahay ama 500 page kooban yahay waxaad tiri buugan one month ku dhameynaa kaalay amal kalmadi only inaad trade this book wax kale amal kalmadi inaad buugan akhriso ma leedahay waa maya shaqooyin kale leedahay waa ku caajisaysaa anta inaad wax akhriso uma baahnid inaad si dhaqsi leh u akhriso laakiin waxaad u baahan tahay inaad horta waxaan akhriyeys akhbashid ina akhriyo horta inaad buugan akhriyo ma aqbalsanayo ma qeybinaad tusaale aqbal waxaan ka wadaa qofka wuxuu aqbalin kuma dhaqaaqi karo ma la sameyn karo laakiin kullama aad akhbasho waxaan aad sameynaysid waa marad ku qanacsan tahay Soomaaliya waa akhbashay kaliya inaad akhbashay u baahan tahay kaliya kuma xirna inaad si dhaqsi leh u akhriso hadii aad u baahan tahay inaad buug akhriso hadii aad u baahan tahay inaad buugan akhriso uma baahnid inaad fahantid sababtoo ah waxaad kaliya u baahan tahay inaad wax horta inaad akhriso inaad ogolo macnaha aad ogoshahay inaad ogoshahay inaad wax akhrisaa uma baahnid inaad waxan fahantid bala isdhahay maxaa UK ma waashte waay waxaan aan fahmin u akhrina ana ku sheegay markii aad dhahdo ingiriis aan baranaya waqti dhow ama waqti aan fogeena macnaha adiga waxa rabaa hal sano kadib inaad si tafa uga hadlaa dhahay luqadda Ingiriiska markii asaas dhahdo su'aalo waxa u tagtay qabiireen ama macallimiin Ingiriiska dadka baro waxa lagu soo dhahayaa ma u baahantahay inaad luqadda Ingiriiska barato afra lagaaga baahan yahay anna waa leedahay qof walba halkan luqadda Ingiriiska yaqaan oo muuqaalkan daawanayno og yahay waa la soo dhahaa luqadda Ingiriiska kaliya ma aha luqad walba aad baranaysid muhiim waay waa lagu soo dhahaa afarta waa inaad wax akhrisaa waa inaad wax qortaa waa inaad wax dhageysataa waa inaad ku hadashaa afartaas muhiim waay wax akhriska ugu horeeya marka okay hadii aadan fahmin waay awood og yahay macalinka ku soo dhahay wax akhri inaad fahmin oo og yahay waay uu book ku soo siiyo ku dhahay akhri muhiim ma ahan marka fahanka waxa muhiim ah inaad waxaan akhriso tusaale hal eray maanta waxaad aragtay reach waad moodimaan maalin kale reach aragtay maalin saddexaad waa aragtay mar afraad meelaha caadi u fahmaysaa ayadoo wax translate aadan gelin ugu fiiri diiradda saar tusaale markii aad u baahan tahay inaad buug akhriso kale uma baahnid waxa inaad xasuusato buug sheeko inaad akhrinaysaa story buugaas waxa ku xusan 100 sheeko waa tusaale buuga waxa ku xusan waa 100 sheeko uma baahnid 100 ka sheeko inaad kulli xasuusnaato every day ama waqti walba aad sheekooyinka soo xasuusato uma baahnid only waxa u baahan tahay inaad adiga buugaas akhriso muhiimadaada waa inaad buugaas akhrisaa waa inaad diiradda saartaa buugaas akhrinaysid sababtoo ah waxaad baranaysaa luqadda sheekooyinkaasna inaad xifdiso muhiim maaha waxa muhiim ah inaad diiradda saarto hadii aad u baahan tahay inaad nafsadaada dhiirigeliso dooro adiga waxaad dooranaysaa hadii aad u baahan tahay nafsadaada dhiirigeliso waa inaad doorataa waxaad adiga tahay ardayda jaamacad bilaawayso tusaale ardayda jaamacad galaysa ardayga iskuulay soo dhameeyeen jaamacadda ay galayaan waxay raadiyaan macallimiin u doorta faculty-ga baran lahaayeen waay lagugu doora faculty-ga baranaysid marka iskuulka dhiganaysid soo ma ogeyn waxa ku fiican tahay sida awgeeda dooro waxa adiga noqonaysa jaamacadda hadda faculty-ga baranaysid jaamacadda marka dhamayso qof ahaan ayaa u matalaysa faculty-gaas ma ogtahay maanta dhakhtar barato waa inaad lahaataa shakliga dhakhtarka hadaad barato engineer shakliga engineering waa inaad lahaataa qof engineer naw ekaataa meelaha noqon qofka adiga aad tahay yuuso qofna ku dooran waxaad adiga noqonaysaa ama waxa baranaysid kaliya adiga dooro daruur waa maxay daruur okay diyaar u noqo wax walba adiga kugu filan diyaar u noqo wax walba adiga kugu filan si walba loo fasirin kara laakiin tusaale yar ku siinaya waxaad ku khasbantahay waa inaad diyaar u noqotaa wax walba adiga kugu filan waxaan ula jeedaa tusaale maanta waxa kugu filan maalintii inaad 10 page book akhriso inaad maalintii 1 haaba dhageysato qof luqadda ku hadlaayo adigoo si caadi ah dhagaha gashan kara hawshaada haysta waa inaad waxyaalo badan waa inaad diyaar u noqotaa waa daruur insha Allah marka midaas ayaan kala jeedaa waa inaad diyaar u noqotaa wax walba adiga kugu filan oo luqadda ku baran karto so insha Allah maanta muuqaalkan halkaas ku arkeen doona soo taxta kulmeen muuqaalka waxa idin leeyahay 7 video insha Allah
waxaa inoo balana muuqaalkan muuqaalka xigo waxaan idinkugu hambalyeynaya inaad na gaarsiiseen 27,000 oo shakhsi subscribers ma dhihi karno 27,000 oo qofood ayaa na gaarsiiseen insha Allah mid kale waxaa jirto dadka YouTube-ka daawado tusaale dadka muuqaalka daawado inta subscribe ka saartay inta aan saarina badan kaliya waxa muuqaalka daawado inta subscribe saaray way daawado isaga tagaa soo waxaan ka codsanaynaa codsiga naga tahay inaad subscribe-ka aad gujiso like tano siiso insha Allah dhiirigelin noo tahay waxaan saaranahay wadadii aan ku tagay lahayn 30k subscribe wow 30k oo shakhsi 30,000 oo qofood ma dhawo insha Allah muuqaalka halkaas oo ka keen doona see you next video bye